السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida nagala socotaan waa maalinimo sabti ah bisha January waa 8 sanada 2022 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal culus oo waqooyiga gobolka tigreega ku dhaxmaraya ciidamo ka tirsan dalka Eritrea iyo kooxda TPLF-ta xaalada dalka itoobiya ee maanta kadib siideyntii maxaabiistii ugu badnayd ee siyaasadeed dhanka Soomaalidana waxa uu weyn khilaafkii ka dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo cirka isku sii shareeray qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya gobolka Eritrea gaar ahaan waqooyiga gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dalka Eritrea oo soo gudbay xuduudka u dhaxeeya wadamada Itoobiya iyo Eritrea ay halkaasi dagaal culus ku dhaxmarayay kooxda TPLF-ta oo ku sugan meelahaasi dagaalka ayaa la sheegay inuu bilowday kadib markii ay ciidamo ka tirsan Eritrea ay soo tallaabeen xuduudka dalkaasi kadibna kooxda TPLF-ta oo ku sugnayd magaalada ka dheereen xuduudka ay weerar ku qaadeen ciidamada dalka Eritrea ayaa la sheegay in xuduudka soo tallaabeen kadib markii ay kooxda TPLF-tu gantaalo ku tuureen gudaha dalka Eritrea dagaalka u dhaxeeya ciidamada dalka Eritrea iyo kooxda TPLF-ta ayaa u muuqday toddobaadadii la soo dhaafay mid sii xoogaysanaya kadib markii kooxda TPLF-tu ay ku dhawaatay xuduudka wadankaasi uu la leeyahay dalka Itoobiya waxaana ciidamada dalka Eritrea ee ku sugnaa xuduudka dalkaasi heegan la geliyay iyadoo laga cabsi qabo in kooxda TPLF-ta ay gantaalo ama weerar ku qaadi doonto ciidamada halkaasi ku sugan dagaalka ayaa la sheegay inuu ahaa mid sii xoogaysanayay marba marka ka dambeysay kadib markii kooxda TPLF-ta ay ciidamo fara badan halkaasi soo dhoobtay iyadoo ciidamada dalka Eritrea oo soo tallaabay xuduudka u dhaxeeya wadamada Itoobiya iyo waliba Eritrea ay halkaasi kala kulmeen iska caabin xoogan oo kaga timid dhanka kooxda TPLF-ta oo ku sugnaa magaalada ka dheereen xuduudka dalka Eritrea iyadoo horeyba ay ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan dalka Eritrea gudaha dalka Itoobiya balse ma ahayn xuduudka u dhaxeeya wadamadaasi waxayna ciidamadaasi joogaan gudaha gobolka xaalada sida wararka lagu helayay balse haatan ciidamada cusub ee soo tallaabay xuduudka dalka Eritrea gaar ahaan xuduudkaasi u dhaxeeya tigreega iyo Eritreanka ayaa haatan cabsi xoogan ka abuuray gobolka Tigray waxaana dadka tigreega ay ka cabsi qabaan ciidamadaasi Eritreanka ee soo tallaabay xuduudka gobolkooda iyagoo maanka ku haya in ciidamada Eritrea ay tacadiyay ka geysteen gudaha gobolka Tigreega kadib markii ay gacan u fidinayeen ciidamada dawladda federaalka dalkaasi Itoobiya oo isbahaysi ay la sameysteen kadibna ay gudaha u soo galeen horaantii sanadkii hore dalka Itoobiya waxaana halkaasi sida la sheegay ay ka geysteen tacadiye kala duwan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha kooxda TPLF-ta ayaa maalmihii la soo dhaafay ciidamo fara badan u daldalaysay dhinaca xuduudka kala dhaxeeya Tigreega iyo waliba Eritrea waxaana kooxda TPLF-tu ay sheegtay in ciidamo Eritrean oo fara badan la soo dhoobay xuduudka dalkaasi uu la leeyahay dalka Itoobiya ciidamadaasina loo diyaarinayay inay gudaha u soo galaan gobolka Tigreega waxaana sida ay sheegtay kooxda TPLF-tu ay ka hortagaysay in ciidamadaasi ay gudaha u soo galaan gobolka Tigray balse haatan gantaalihi ay ku tuureen gudaha dalka Eritrea ayaa keenay in ciidamada dalka Eritrea ay gudaha u soo galaan gobolka Tigreega lama ogeyn horeyba u qorsheynayeen inay gudaha u soo galaan dalka Itoobiya balse haatan sida ay sheegayaan ciidamada Eritreanka ayaa sheegay in kooxda TPLF-ta oo ku soo dhawaatay xuduudka u dhaxeeya wadamada Itoobiya iyo Eritrea ay bilowday inay gantaalo ku tuurto gudaha dalka Tigreega caasimada dalka Eritrea oo aan ka fogeyn xuduudka uu la leeyahay wadankaasi dalka Itoobiya ayaa u muuqatay mid ay saameyn ku yeelan karaan gantaalo ay ku tuurto kooxda TPLF-ta gudaha dalka Eritrea waxaan ogeyn in sanadkii hore ay gantaalo ku tuureen kooxda TPLF-ta gudaha gobolka Eritrea isla markaana ay gaadheen caasimada dalkaasi Eritrea dawladda federaalka dalka Itoobiya ayaan wali ka hadlin dagaalkan cusub ee ka dhaxeeya kooxda TPLF-ta iyo waliba ciidamada dalkaasi Eritrea ee gudaha u soo galay haatan gobolka Tigreega dagaalkan ayaa u muuqda mid ku fidi karaya gudaha gobolka Tigreega hadiiba ay gudaha u soo galeen ciidamada Eritreanka dalka Itoobiya
waxaana kooxda TPLF la soo sheegayaa in laftirkoodu aanay fududeen oo halkaas ay ciidamo fara badan geeyeen lagana yaabo inay iska caabin xooggan ku sameeyaan ciidamada dalka Eritrea. haatana xaalada guud ee dalka Itoobiya ayaa la soo sheegayaa maanta inay jawi cusub gashay isla markaana u muuqata mid sidii hore ka bedelan kadib markii la soo daayay maxaabiistii ugu badnaa ee siyaasadeed isla markaana ahaa dad magac dheer ku leh dalka Itoobiya isla markaana kasoo kala jeeda qowmiyadaha haatan dagaalka culus uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya. waxaana siyaasiyiintan haatan la soo daayay la filayaa inay wax badan ka bedeli doonaan xaalada dagaal ee dalkaasi uu ku jiray muddada ka badan sanadka, iyadoo siyaasiyiintan culus ee haatan xabsiga laga soo daayay ay saameyn badan ku lahaayeen dagaalada ka socday dalkaasi Itoobiya muddada ka badan sanadka, isla markaana kooxaha dagaalka kula jiray dowladdu ay in badan ku andacoodeen in la soo daayo maxaabiista siyaasadeed ee dowladda u xidhan kadibna ay ogolaan doonaan inay ka wada hadlaan dagaalada ay kula jiraan dowladda dalkaasi Itoobiya. qoraal uu soo dhigay baraha Facebook iyo Twitter-ka ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu ku sheegay in dowladdu ay ka shaqayn doonto soo afjaridda colaadda iyadoo maraysa hannaan nabadeed iyo mid siyaasadeed. waxaa jiray baaqiyo caalami ah oo soo laablaabtay kuwaas oo lagu doonayay in lagu xaliyo dagaalka sokeeye ee uu dhiiggu ku daatay ee ka dhacay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ee tigreega. hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka muuqday jileec marka la eego sida uu maamulkiisu alaaba uu wacad ugu mari jiray inuu cagta marin doono mucaaradka. Abiy Ahmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay arrintan u sameynayso iyadoo doonaysa in la gaaro dib u heshiisiin qaran sarena loo qaado midnimada. ciidamada dowladda ayaa mucaaradka la dagaalamayay muddo sanad ah kadib dagaal ka dhacay waqooyiga dalkaasi oo ay ku dhinteen kumanaan qof. saraakiil sare oo caan ah kana tirsan TPLF ayaa ka mid ah dadka cafinta loo fidiyay. cafiskan ayaa imanaya kadib dagaal socday muddo 15 bilood ah kaas oo ciidamada dowladda ay dib ugu qabsadeen dhowr magaalo oo ay mucaaradku horay ugu sugnaayeen. markii ay ku dhawaaqaysay cafiska ayaa waaxda warfaafinta ee dowladdu waxay qoraalka ku sheegtay in furaha midnimo waarta uu yahay wada xaajood Itoobiyana ay nafta u huri doonto si tan loo gaadho. ujeedadu waa in wadada loo xaadho in hab nabadeed iyo xal waara looga gaadho dhibaatooyinka Itoobiya, gaar ahaan iyadoo ujeedadu ay tahay in guul laga gaadho wada xaajood loo dhan yahay ayaa lagu yiri qoraalka. balse qoraalka laguma xusin wada xaajoodka dheeraadka ah ee lala galayo kooxda TPLF oo ay bishii la soo dhaafay sheegtay inay diyaar u yihiin wada hadal haddii ay dowladdu sii dayso maxaabiista siyaasadeed ayna soo afjarto go'doominta muddada 7 bilood ah saaran Tigray, taasoo sababtay in cunto iyo dawo la gaarsiin waayo gobolka Tigreega. sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda, siyaasiyiinta caanka ah ee TPLF ka tirsan ee la sii daayay waxaa ka mid ah Sebhat Naga, aasaasihii kooxda TPLF, iyo Abai Weldu oo ah madaxweynihii hore ee gobolka Tigreega muddo ka badan 20 sano ka talinayay. siyaasiyiinta kale ee caanka ah ee ka soo jeeda qowmiyadaha kale ee la soo daayay waxaa ka mid ah Jawar Maxamed iyo waliba siyaasiyiin kale oo ka tirsan qowmiyadda Oromada. haatana Soomaaliya, khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa u muuqda inuu cirka isku sii shareeray kadib markii ra'iisul wasaare Roble oo shalay ka hadlayay deeq soo gaadhay dalka Soomaaliya kana timid dalka Imaaraadka Carabta uu sheegay in dowladda Imaaraadka lacag ka xanibneyd loo sii deynayo isla markaana ay dowladda Soomaaliya ka raali gelinayso dowladda dalkaasi Imaaraadka khaladaad uu sheegay in dowladda Imaaraadka loo geystay. arrintaasi ayaa la sheegay in Villa Soomaaliya ay ka xanaaqday isla markaana waxa madaxweyne Farmaajo waraaq u qoray gudoomiyaha bangiga dhexe isla markaana uu ku amray inaan wax lacag laga bixin kareynin bangiga dhexe isla markaana aanay waxba ka jirin ballanqaadyada uu sameynayo ra'iisul wasaare Roble. arrintan ayaa u muuqata mid si horin karaysa khilaafka siyaasadeed ee ka taagnaa dalka Soomaaliya una dhaxeeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka. waxaana haatan socday shir lagu magacaabo wada tashi qaran oo u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo waliba madaxda maamul goboleedyada oo qaar badan oo ka tirsan ay taageersan yihiin madaxweyne Farmaajo. waxaana halkaasi ka iman karaysa caqabad siyaasadeed iyadoo shirku aan weli dhammaan isla markaana uu qaatay muddo dheer la iskuna afgaran laayahay qaar ka mid ah qodobo la soo dhigay oo ka mid yahay amniga dalka.
waxaana haatan ay u muuqataa in shirku uu kasii dheeraan karayo waqtigiisii. akhirta sharafta leh wada nagala socoto intaas waxaan kusoo koobinaa guud ahaan wararkiina soo gaadhayay intaan ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.